Taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybta 6aad Generaal Ibraahim Aadan Yarow oo safar dib u xureen ka maqnaa deegaano ku tirsan gobolka Shabeellaha Hoose hanasayo ka dhow maleysadaayeen maleeshiyada Al-Shabaab iyo reedgeekanka nagadi magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay garoonka diyaarado mehe ka dhawaayay saraakiil xigeen Alifley Dable iyo weliba abaanduulaha ciidanka xoogga dalka qaybta 6aad gaashaan la sare Ismaaciil Khaliif Shire hadhawaayo ku kuriyay taliyaha lahangelbi xarunta taliska ciidanka xoogga dalka Milasono Salaan Sharaf oo qaaday cutubyo ku tirsan ciidanka xoogga dalka qaybta 6aad taliyaha ciidanka xoogga dalka qaybta 6aad Generaal Ibraahim Aadan Yarow iyo sidaas oo kale saraakiil ku wareysaday howlgallada iyo wadaan ciidanka xoogga dalka xaanka suuq magaalada Baydhabo iyadoo saraakiil iyo sheegeen anti maleeshiyada Al-Shabaab weerar gaadna iyo ka qaadeen fariisimo iyo la hayeen ciidanka xoogga dalka guutada 47 ee ka sugan deegaanka Daynuuna Milasono maleeshiyada weerarka qaaday kasaarin iska jarta dhimashii dhaawac bilka deersiisa soo kaleedna lagu furuday hubka dagaal noocyadiisa kala duwan Generaal Ibraahim Aadan Yarow taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo warbaahinta koonfur galbeed sheegay howlgalladii lagu waday gobolka Shabeellaha Hoose intii lagu diray guul wana la ka jibiyay adowga ummada Soomaaliyeed ee Al-Shabaab sidoo hadalkan dhiki saakay waxaan gaaray magaalada Baydhabo oo ah taliska qaybta 6aad anigoo in muddo ka maqnaa oo aan ku maqnaa gobolka Shabeellaha Hoose oo qaybta 6aad ee xoogga dalka Soomaaliyeed ka tirsan oo ay ka socdeen howlgalaas oo qayb ay ka ahayd guutada 7aad oo qaybta 6aad ka tirsan alxamdulillah howlgallo fiican ayaa dhulkaasi jiinka webiga Shabeelle labadiisa dhinac ay ciidamadu ka fulinayeen howlgalladina weli way socdaan laakiin shaqo ayaan u soo gaaray taliska qaybta 6aad oo ah Baydhabo oo aan saakay 4 saac soo galay alxamdulillah ilaahay baa mahad leh saraakiishii qaybta oo ugu horeeya abaanduulaha qaybta way soo dhaweeyeen si fiican oo sharaf leh kolley shir yar oo gaabanna waan galnay saraakiisha qaybta howlahaasaan marka hadda maalmahan aan ku maqnaa haddana haddii ilaahay yiraahdo halkaan howl ka qabanaynaa oo muhiim ah oo aad iyo aad muhiim ah aan rabnaa inaan ka qabanno insha allahu tacaala wayna noo hagaagaysaa haddii ilaahay raalli ka noqdo sida aan rajaynayna guul ayay ku dhammaan doontaa dooyinkii dambooyay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo wadii howlgallo la ka baxsado maleeshiyada Al-Shabaab dhawaan yahay markii howlgal ku fulay deegaano ku tirsan gobolka Shabeellaha Hoose hanasono la kula wareegay fariisimadii iyo la hayeen maleeshiyadka Al-Shabaab Faysal Maxamed Isaaq telefishinka dawladda koonfur galbeed Baydhabo